السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي لدلهانتي بملك السود شوفتان كسو دوادا برنامج كيني دور شوفتا برنامج كينن oo inoo socday oo taxana ahaa waa qaybtii afraad waxaanay ka hadlaysaa webiga loo yaqaano Okavango Delta ee ku yaala dalka Botswana balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay kani waa harimacadkii dhedigaa waxa uu harimacadku bilaabayaa ugaarsigiisii waxaanu eegayaa halka weerarka uu ka bilaabi karo balse sidii isagu waxba uma helin waxaanu sidii u saarnaa geedka dushiisa hadda waa maalin cusub waa cusub ayaa u beriyay duurjoogtii Okavango Delta waxaa iyadu waa bariisatay jeerta waxaanay aad ugu badan tahay dhulkani kuwani waa 15 ka mid ah jeerta webiga ku nool waana qoys isku tiirsan nolol ahaan iyo weliba amni ahaanba kuwani jeerta ahi iyagu ee 15 ka koobani waa kuwa xooga oo iyaguna waxay leeyihiin xuduud u gaar ah cid u soo dhawaan kartaana oo dhulkan ku qabsan karta ama jeer kaloo iman karta ma jirto noolo kasta oo ku nool Okavango Delta waxa uu leeyahay xuduud u gaar ah xuduudiisaasi noolo kale oo ka mid ah ama duurjoog kale oo la midii ma iman karto dhulkaasi ay iyagu xuduudda u leeyihiin iyagaana dhulkaasoo dhan haysanaya oo ilaashanaya xilligan webiga Okavango waa xilli ay barwaaqo tahay waxaa ku nool kalluun badan oo ugaadha qaar ku nool yihiin noocyo badan oo kalluun ah ayay shimbirahani ku nool yihiin webigan hareerihiisa waxaa ku nool shimbiro badan oo aad u tiro badan oo weliba kala nooc ah kuwaasi oo weliba aan caalamka kale lagu arag duurjoog badan ayaa geyigan ku nool kuwaasi oo noloshoodu ay ku xidhan tahay webiga
Tani waa geri muddo 3 cisho ah biyo may cabbin, balse waxay daaqaysaa dhirta kala duwan oo aad iyo aad u soo jiidanaya nolosheeda kuna filan. Waxay biyaha la'aan kartaa 3 cisho iyo wax ka badan. Sida geela oo kale ayay iyaduna leedahay meel ay biyuhu ugu kaydsamaan oo ka mida jidhkeeda. Waxay cuntaa geedo ama caws ama doog gaadhaya 75 ama 75 pound oo dhirta kala duwan ah. Gerigu si uu cuntadiisa u helo waa in uu dhulku noqdaa mid biyo yar. Gerigan laftigiisu waa qoys iyaguna isku tiirsan oo hoggaan leh. Kuwani waa laba lab, waxaana isku dagaalayaan midkii hoggaamin lahaa qoyskani. Waxaana laga adkaaday midkii xoogga yaraa, kaasi oo ka dhaqaajiyay markaa qoyska, balse qoyska ayuu ka mid ahaanayaa ee hoggaanku wuxuu noqonayaa kaasi ka xoog badan ee ka badiyay isaga dagaalka. Kuwani waa raxan libaaxyo ah, iyaguna waa qoys. Waxay ka kooban yihiin aarka iyo 12 goolood iyo weliba cagabarhuuro. Kuwaasi oo yaryar oo noloshooduna ku tiirsan tahay kolba sida ay wax u ugaarsadaan. Aarku inta badan isagu cunto raadis ma galo, balse goolaha ayaa cunto raadiskana gala oo iyagu ugaarsada, dhallaankoogana koriya. Dabeecadda ay libaaxyada ama raxamuhu ay leeyihiin ama libaax kastaa leeyahay, maalintii 20 saacadood oo ka mid ah ayay nastaan. Waana sida ay iyagu u nool yihiin ama raxan kastaaba ay u nooshahay. Goobtan waxaa ku nool ay duureed ama ay dibadeed kuwa ugu khatarsan Afrika. Noloshoodu waxay ku xidhan tahay ugaarsi. Waxay maanta ugu tala galeen inay ugaarsadaan oo ay wax helaan. Waxay bilaabeen in ay dhaqaaq sameeyaan, cunto raadisna ay galaan.
durba waxay soo gaadheen inay isha ku dhufteen waa dameer dibadeed. Waxay bilaabeen inay abbaaraan, balse dameer dibadeedkii waa uu iska difaacay. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal, qaybteenna afraadna intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Inta aynu qaybta ugu dambaysa ee shanaad ku kulmi doonno, waxaan leenahay dhammaantayo nabadgelyo.